kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinkugu hayno qodobadiisana waxaa ka mid ah doorashada 6 kursi oo aqalka sare ee Soomaaliya ka tirsan ayaa maanta ka dhacaysa Dhuusamareeb Suudaan Umar al-Bashir u dhiibeyso maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee ICC sagaashan ka mid ah xarumaha warbaahinta Afghanistan oo la xiray daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan maanta ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu qabto doorashada 6 ka mid ah kuraasta aqalka sare oo maamulka Galmudug ku yeelanaya baarlamaanka Soomaaliya shalay ay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug waxa ay diiwaan galiyeen 12 musharax oo ku tartami doonto 6 kursi ee aqalka sare kuwaasi oo maanta dhacaysa doorashadooda musharaxiinta ayaa marka hore waxa ay khudbad musharaxnimo u jeedin doonaan golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug iyadoo oo intaasi kadib ay doorashada bilaaban doonto xubnaha ka kooban 12 musharax ee doorashada maanta ku tartami doonaan ayaa qaarkood 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay ka mid ahaayeen xildhibaanada aqalka sare waxaana magacyadooda musharaxiinta ay kala yihiin Cabdi Axmed Duxulow Nuur Xasan Gutaale Yuusuf Geelo Ugaas Daahir Faarax Fidow Saciid Siyaad Shirwac Maxamed Daahir Maxamuud Zamzam Daahir Maxamuud Farxiya Maxamed Guure Cabdixakiin Macallim Axmed Ismaaciil Cabdi Xasan Duniya Maxamed Cali Khadra Cabdullaahi Isxaaq ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta baarlamaanka Galmudug lagu arkay ciidamada booliska iyo nabad sugidda oo ammaanka xoojinayo iyadoo ay Taliban ku sii siqayso qabashada guud ahaan Afghanistan ayaa in ka badan 90 xarumaha warbaahinta la xiray waxaana sii kordhay walaaca laga qabo badqabka suxufiyiinta dalkaasi saraakiisha Afghanistan ayaa Arbacadii sheegay in badan xarumaha ay ku yaalaan gobolada Taliban ay qabsatay sidoo kale xaqiijiyeen wariyaasha iyo saraakiisha kale ee warbaahinta koonfurta goboleedka Helmond oo kaliya waxaa la xiray 12 idaacadood iyo 4 TV sababo la xiriira dagaalka xooggan oo ka socda caasimadda gobolkaasi ee Lashkar Gaha dadku kama bixi karaan guryahooda ayuu yiri Saifullah Zaidi oo ah aasaasaha Radio Sakuna ee Helmond badqabka dartiisa waxaan xiraynaa warbaahinta 2 maalmood ka hor inta uusan dagaalku ka fidin aaga magaalada saldhigeenu yahay ayuu sii raaciyay Taliban ayaa kordhisay weerarada ay ku qaadaan goobaha ay dowladda Afghanistan gacanta ku hayso waxayna sheegeen inay qabsadeen 9 caasimad goboleed Shahwi Sharaq oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in 46 wariye ay ka soo guureen gobolada una wareegeen Kaambul sababo la xiriira dagaalka iyo hanjabaadyaha madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa loo dhiibayaa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ICC wasiirka arrimaha dibadda Maryama al-Mahdi ayaa arintan shaaca ka qaaday Umar al-Bashir oo loo haysto dambiyo dagaal oo uu ka geystay gobolka Darfur ayaa waxaa sidoo kale wehelinaya dhowr sargaar go'aankan ayaa la sheegay inay gaareen golaha wasiirada ee dalka Suudaan Bashir ayaa xukumayay wadankaasi muddo 30 sanadood ah waxaana lagu eedeeyay inuu xasuuq iyo dambiyo dagaal ka geystay gobolka Darfur ee ka tirsan Suudaan madaxweynihii hore ee 77 sano jirka ah ayaa waxa ay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada doondonaysay tan iyo 2009 xilligaasi oo ay soo saartay amar lagu soo xirayo daawadayaal wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah